barnaamijkeennan xogta dahsoon waxaynu ku soo qaadanaynaa geedka ugu khatarsan dhirta caalamka ku taala kaasoo xitaa hadhkiisu uu sumaysan yahay waana geed qayb kasta oo ka mid ihi kugu dili karto qaab gaar ah waana geedka lagu magacaabo manjaniil oo afka Soomaaliga ku noqonaya tufaaxii lagu dhimanayay geedka manjaniil waa geedka ugu sunta badan dhirta ku taala koonkan aynu ku noolnahay waxaana uu ka baxaa dacalka galbeed ee dunida sida gobolka Florida jasiiradda Bahamas iyo mandaqada badda Caribbean-ka si haddaba ay u badbaadaan oo uga samata baxaan dadka aan aqoonta u lahayn geedkan sunta sii daaya waxay hoostiisa la dhigay boodhar iyo calaamado qeexaya dhibaatada caafimaad ee uu leeyahay midhaha geedka ka baxa waxay soo shabahaan tufaaxa yaryar waana qaybta ugu dhibaatada yar geedkan waaxiyeysa oo ay ugu sun badan tahay qaybta caanaha ah ee sida dheecaanka looga dhijiyo geedkaasi oo ah maado gubaysa oo uu huruushoobayo qofka aadamahaahi waana sababta keentay in geedkaasi galo buugga jinis ee lagu ururiyo waxyaabaha rikoodhada dhiga iyadoo dhibic keliya oo caanihiisa ah oo jidhkaaga ku duldhacda ay ku gubayso halka sidoo kalena dhibicda roobka ee dushiisa ku daada ee ka soo dareerta caleemihiisu ay kugu sababayso barar iyo cuncun jidhka oo dhan ah qaabka kale ee sunta ugu sii daaya waa haddii aad xaabo ka dhigato geedkaasi xilligaa oo uu qiiqa ka baxaa kugu sababi karo indhala-aan hogaamiyihii Isbaanishka ahaa ee ka mid ahaa dadkii ku duulay dunida cusub Mr. Juan de Leon waxa uu ka mid ahaa dadkii daha qaaday in geedkaasi uu sun yahay kadib markii uu sanadkii 1522 gaaray gobolka Florida ee dalka Mareykanka isagoo baadi goobaya dahab iyo macdan kale oo halka loogu sheegay laakiin waxaa diiday inay dhulkooda ku wareejiyaan dadkii Hindida casaha ee halka ku noolaa ilaa uu dhex maray dagaal kulul oo lagu dhaawacay Mr. de Leon dhaawaca oo ku hoos galay geedka kadibna uu suntii ka soo baxaysay u geeriyooday waqti kooban ka bacdi geedkaasi waxa uu leeyahay midhaha dhira dhabatada ah ee loo yaqaan tufaaxa lagu dhimanayay iyadoo cunitaanka midhahaasi ay keenaan in cunaha qofku bororo calooshuna ay ma jirto oo xanuun deen weydo qiiqa ka baxaya dabkiisa la shitaana waxa uu sababaa indhala-aan muddo koobana iyo mushkilad xagga neefsashada ah oo uu naqasku hor iyo dib kaaga xuruumayo laabtaada waxyaabaha loo badiyey digniinaha iyo calaamadaha casaanka ah ee iska jirta ee geedka lagu xariiqaa waxa ay ku tusayaan inaan la harsan karin iyadoo harkiisu kugu keenayo inaad xanuun ka dareento caloosha iyo lafaha jidhka oo dhan waana geed dhererkiisu gaadho ilaa 9 mitir waxaana leebka qaansada baaruud uga dhigi jiray dagaalyahanadii Hindida cas ee dhagcasta reer galbeedku ay dhulkooda ka qaadeen